gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya Dr. Aadan Cabdullaahi Aw Xasan ayaa waxa uu sheegay in dhawaan baarlamaanka maamulka waqooyi bari ay dooran doonaan madaxweynaha maamulkaasi isagoona sheegay in iminka ay gacanta ku hayaan jadwalka cusub ee lagu dooranayo madaxweynaha cusub ee maamulka waqooyi bari waxa uu sidoo kale sheegay in dhammaan la xaliyay khilaafaadkii ka dhashay doorashadii ka dhacday magaalada Laascaanood kaasoo asaga gudoomiye lagu doortay waa kan Dr. Aadan Cabdullaahi Aw Xasan oo arrimahaasi ka hadlaya waxa ugu horeeya waxa weeye inaanu qaban qaadino doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka oo si hufan oo transparent leh u qabano muddo kooban ku qabano si markaa ay dawladdu u dhameystirnaato taasi markay dhamaato waxa la gudagelayaa managementkii ama maamulkii golaha oo ah sharci dejinta waxa la gelayaa samaynta xeer hoosaadyadii oo ku shaqayn lahaa goluhu shuruucdii oo ku shaqayn lahaa gudiyadii shaqayn lahaa marka maamulkii golaha run ahaantii iyadoo loo maamulayo si cadaalad leh oo muuqato oo waxa la yiraahdo daahfurnaan leh oo yacni nidaam leh ayaanu gudagelaynaa sax ahayd dawladnimada la gelayaa waanaba weliba ku taamayna inay noqoto maamul iyo dawladnimo daahfuran dadkeeda u dhow ka fog musuqmaasuq iyo iyo qabyaalad iyo wax daran oo dhan iskuna dayda inay dadkeeda u adeegto wax la sameynayo process loo marayo gaar ahaan waxyaabaha humanka institutionska marka la marayo way jirtaa in la isku khilaafo processkaas oo la isku khilaafo kootooyinka dadku ay leeyihiin ama xisbiya ha noqdeen ama siday doonaan ba haysu qaybiyeen in la isku khilaafo wax la isku diido qolaba wax jeclaato qof meel ka arko waxaas oo dhan waa caadi oo normal muhiimadu waxa weeyaan marka ugu dambaysa guush waxa weeyaan in la isku raacay hadda waxaanu joognaa marxalad la isku waafaqsan yahay oo la isku raacay waxa laalay wixii ka soo baxay meesha kii hore yani wax khilaafsana ama wax suluugayna hadda waa la wada qanacsan yahay bini'aadmiga lama wada dhargin karo laakiin hadda barnaamijka yaala ee miiska saaran waa la isku raacsan yahay taas weeyana muhiimadu dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Aadan Cabdullaahi Aw Xasan ayaa waxa uu sheegay in dhul fara badan uu kaga maqan yahay maamulada Puntland iyo Somaliland isagoona sheegay in xuduudaha kala dhaxeeya labadaasi maamul aan heshiis lagu ahayn waa kan mar kale Dr. Aadan Cabdullaahi Aw Xasan oo arrimahaas sharaxaya guud ahaan deegaanada sidoo ma la yaqaanaado deegaanada waa dhinaca bariga weeyaan dhinaca waqooyi dhinaca waqooyi galbeed xuduud jirta aan xogaa wali la isku khilaafsan yahay dhinaca bariga deegaanada jira marka kulli waa ma garan kartaa wax weeyaan waa un dhinaca galbeedka iyo dhinaca bariga labadaba waa naga xiga maamulo kala naga xiga marka in la heshiis lagu ahayn dhinaca xuduudaha labada darafba waa suurtagal weeyaan marka hadalka gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo dhismaha maamulkaasi ay si weyn kaga soo horjeedaan maamulada Puntland iyo Somaliland